xalfad aad iyo aad loo soo agaasimay oo ku qalin jebinayeen gabdho bartay cilmiga diiniga ayaa maanta ka qabsoontay hoolka baarlamaanka ee degmada Dowlado. Xalfadani oo ay ka soo qayb galeen culimooyin iyo marti sharaf aad iyo aad u sareysa ayaa ugu dambeyn waxaa lagu abaalmariyay ardayda shahaadooyinka mutaystay ee gabdhaha ee bartay cilmiga diiniga ah. Waxaan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah gabdhihii ka qalin jebinayay saaki. Soo dhawow marka hore ka waran waxbarashadaadii iyo dowladda maanta ka qalin jebisay ka waran. waan dhawahay alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh dowladayda aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qalin jebiyo maanta waxyaabo badan oo inoo hirgaleen alxamdulilah. Okay gabdhaha kale maxaad ugu baaqaysaa inay mataqaanaa sidaas oo kale wax bartaan oo salaada iyo waxyaabaha arkaanta ay bartaan ka waran gabdhaha kale maxaa leedahay. gabdhaha kale waxaa ugu baaqi lahaa inay ku dadaalaan waxbarashada waqtiga ay ku bixinayaan social media ay ku bixinayaan inay diinta ku bartaan ayaan kula talin lahaa. Masha Allah. sidoo kale gabar kale wareysanayna soo dhawow ka waran casharada ku socday iyo waxa aad ka baratay dowladdan maanta ka qalin jebisay. waan dhawahay maasha Allah wallahi sidii hore iyo sidii hadda wax badan baa iska bedelay maasha Allah quraanka iyo cilmiga si aad iyo aad u bartay. Okay maalinta imaanaysa hadda ka warban maasha Allah lama qiyaasi karo maanta farxadeyda. sidoo kale gabdhaha kale maxaa leedahay inay cilmiga aad baratay bartaan in kar kuwa aan baranin inay bartaan aan ku waanin lahaa insha Allah. gabdhahan oo in muddo ah baranayay madraska Imaamu Maalik ayaa maanta ugu dambeyn ka qalin jebiyay cilmigii diiniga ah ee baranayeen waa Xuseen Indhe leh guuleys